kitaabka ugu dambeeya waxyiga ee la yiraahdo muujintii waxa Ciise Masiix ku oranaya bal eeg anigu dhaxsaan u imanaya oo abaal gudkaygiina waan wataa si aan nin walba ugu abaal gudo sidoo shaqulkiisu yahay anigu waxaan ahay alfa iyo omega kan ugu horeeya iyo kan ugu dambeeya bilowgii iyo dhamaadka mid kale oo nabi isku sheegay ama nabi run ha ahaado ama nabi been ha ahaado ya oo sidaas oo kale oran kara oo awooddaas oo kale ku hadli kara ma jiro dhammaan bini aadanku walaalayaal way dhimanayaan oo ay ku jiraan xataa kuwa nabiyada isku sheega laakiin se waxa hubaala inuu Ciise nool yahay ama jiro sidoo waligi u jiray oo uu yobal qiyaamaha mar kale isagoo jid leh sidoo uu jid ahaan inoogu yimi isagoo jid leh uu soo laaban doona laakiin se Bible ku aaminsan yahay inuu jidkaasi yahay jid amaanan oo samaawiya oo aan keen oo kala ahayn erayga Ilaahay waxa ku qoran maalinta Ciise Masiix wuxuu u imanayaa isagoo ah ka xaakinka ee dadka xukumaya sida ku qoran aayadii aan hore u soo akhriyay maalinta dhammaanteen waa layna wada muujinaya ama waa layna soo wada sarakicinaya oo waxa layna horkeenaya kursiga xukuumadda ee Ciise Masiix hortiisa in qof walba uu helo siday ahaayeen waxyaalihii uu jidka ku falay ama markuu noolaa uu sameeyay ha ahaadeen wanaag ama shar marka walaalayaal Ciise Masiix waa nool yahay Ciise Masiix wuu jiraa waligiina wuu jiray haddana wuu jiraa wuuna soo laabanaya taa ku bishaaraysta waxaan rajaynayaa inaan taa ka fikiri doontaan uga fikiri doontaan ma sida yare laydinka dhaadhiciyay iska korka Ciise Masiix waa nool yahay bila macnaha laakiin si qoto dheer iyo sababta ay taasi ku timi Ilaahay idin barakeeyo waana mahadsantiin